soo dhawow magacaygu waa Ibrahim Adam waxaan idin soo gudbin doonaa nin malaayiin dollar ka sameeyay dhagaxan uu dadka uga dhigay noolayaal kadib markii uu ogaaday in dadka wax walba laga dhaadhicin karo waxay ahayd 50 sanadood ka hor balse maanta maxaad u malaynaysaa in dadka laga dhaadhicin karo dhankii la doono ayaa loo jeedin karaa inta aan muuqaalkan u guda gelin fadlan waxaan ka codsanayaa in aad kanaalka ku soo biirto oo aad subscribe ii saarto si aan 1k u gaaro sidoo kale waxaan ka codsanayaa in aad muuqaalka asxaabtaada la wadaagto ama aad like gareyso waad qurux badan tahay mahadsanid حارست وادلت ربي كود حاسي قفك مردوغتا ninkan oo lagu magacaabo Gary Dahl ayaa malaayiin dollar ka sameeyay dhagaxan uu dadka uga dhigay noolayaal ay rabaayadeysan karaan ama ay dhaqan karaan kuwaas oo wax dhibaato aan ku haynin cunto uma baahna kama walwalaysid ayuu ku qoray warqadda xayeysiinta ama sidaas ayuu ku dhawaaqay markii uu gaday wuxuu leeyahay cunto uma baahna kama walwalaysid dhagaxantan waxa uu ka soo aruuriyay ama uu ka soo daabulay xeebaha dalka Mexico halkii dhagaxna waxa uu dadka ka iibinayay $3.95 oo maanta u dhiganta $15 waxaana laga iibsaday ilaa 5 milyan oo dhagaxantaas ah waxa uu ku dhaxriday baakado waxa uuna ku qoray waxa ay aad ugu wanaagsan yihiin in la tababaro waxay iska dhigi karaan in ay dhinteen oo kale dabcan si aan looga shakinin waxay jecel yihiin in ay safraan iyaga oo ku jira jeebkaaga waraysi ninkaani la yeeshay 1995 ayuu ku sheegay in dadka ay yihiin kuwa aad u caajisan isla markaana daalay lana tacaaliya ama la dhibaatoonaya dhibaatooyin fara badan sidaas darteedna ay aaminayaan wax kasta lagana dhaadhicin karo dadka aad ay uga dhaadhacday fikradda ah in dhagaxantaani ay noqon karaan noolayaal kuwaasi oo la rabaayadeysan karo oo waxna la bari karo sida eega oo kale wehelna noqon kara oo qofka uu heshan karo sida uu qoray wargeyska New York Times lacagta uu dhagaxantaasi ka helay ninkani waxay u saamaxday in uu ka iibsado gaarigii riyadiisa ahaa kaas oo noociisa ah Mercedes isla markaana uu dago guri aad u weyn oo qaali ah Mr. Dahl ayaa isku dayay in uu bilaabo fikrado la yaab leh oo uu doonayay in uu lacag kaga sameeyo balse uma aysan shaqeynin intooda badan waxa kamid ahaa fikradan la yaab kale oo ah in uu dadka ku qanciyo in ciida laga sameyn karo taran sida lab iyo dhidig oo kale ninkan wuxuu geeriyooday ama dunida ka tagay ama dunida uu ka musaafuray 2015 isaga oo 78 jir ah waxa uu aad uga walwalsanaa oo sidoo kalena aad uga shaleynayay in fikrad noocaas uu dadka ka iibiyay waxa uu muujiyay oo sheegay in noloshiisa ay ka wanaagsanaan lahayd hadii uu sameyn lahayn fikradda ama ganacsiga noocaas oo kale ah haddaba sheekadani ma ahan sheeko been ama la soo dhoobay wargeysyada sida New York Times ayaa wax ka qoray sheekadani waa sheeko run ah oo dhab ah oo dhacday haddaba dadka maanta dhinaci doono ayaa loo jeedin karaa maadaama sanadkaas wixii la rabo laga dhaadhicin karay laakiin maanta dhankii la doono ayaa loo jeedin karaa sida Soomaalideena oo kale wixii la doono ayaa laga dhaadhicin karaa dii la yiraahdo waxaan lacag ayaa laga sameeyaa dhamaantooda wuxuu doonaa ha ahaado waa ay sameynayaan muhiimaddu waxa ay tahay in aad mar walba ogaataa in wax walba aysan macquul ahayn aysan jirin cid lacag bilaash kugu siinaysa iyo inaad socoto iyo inaad wax share gareyso iyo inaad link share gareyso cid lacag kugu siinaysa ma lahane ee waxa jira qaabab kale oo online-ka looga ganacsado oo aad sameyn kartid waana wax real ah laakiin inta badan waxyaalaha fake ah ama scam-ka ah ee dadka lacagaha loogu dhaco waa in aad ka digtoonaataa waa in ayna maskaxdaada shaqeysaa sheekada maantana waxayna tusaysaa in dadka maanta dhinacii la doono loo rogi karo dhinacii la doonana loo jeedin karo intaas ayaan jecelaystay in aan idinla wadaago ood qurux badan tahay waxaa lagu talinayaa in aad kanaalkan ku soo biirto oo aad subscribe saarto sidoo kale muuqaalkan aad like gareyso haddii aad awoodidna aad asxaabtaada la sii wadaagto sababo la xiriiro in aad caawiso milkiilaha kanaalka waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan ku raaxayso noloshaada waad qurux badan tahay peace naxariistu waa dhalad rabbi kugu dhaxaasay qofka aad mardhugataa soo nasiibku ma dhaxo